السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan aad naga dhageysanaysaan waa website-ka iyaga Arabsiya Times iyo YouTube-ka iyaga oo isna Arabsiya Times ah. barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa waa barnaamijyadeeni taxanaha waa qisadan waxaa la yidhaahdaa geedi fure iyo quman cali waraabe. qisadani waxay ku saabsan tahay dhibaatooyinka qurbaha iyo mushkuladaha qofku uu kala kulmo markuu cusub yahay. qisadeenani waxay daba socotaa barnaamijkeenii Green Card Lottery. waxay ku saabsan tahay waa geedi fure oo ahaa professor wax ka dhigi jiray dalka Yaban, gaar ahaan caasimadda Sanca jaamacadaheeda. kolkii dambena noqday madaxa xafiiska kormeerka ee gobolka Sanca la yidhaahdo. waxaynu dul joogsan doonaa geedi fure iyo quman cali waraabe qisadii dhex martay, balse aynu ka soo sheekayno geedi fure. geedi fure wuxuu taariikhaan iyo nolol ahaanba ku soo barbaaray galbeedka gobolkii la odhan jiray waqooyi galbeed. waxa uu ahaa raggii tacliinta uu xilliyadii British Protectorate-ka ay ahayd ka baxay dugsigii Camuud. waxa uu ahaa macallin aada u qiimo badan. sanadku markuu ahaa 1967kiina waxaa loo diray jaamacad ku taala London oo Cambridge University, halkaasi oo ku soo qaatay majhabka amba habka la yidhaahdo curriculum education management. waa maareynta majhabka waxbarashada. waxaana ku soo noqday waktigii dambe magaalada Sheekh oo halkaa uu macallinnimadiisii ka sii hayay dugsigii sare ee Sheekh. warsamo fure warsamo fure wuxuu meelo badan oo sida jaamacadda ummadda wuxuu ahaa macallimiintii profesorada ee wax ka dhigi jiray jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed. sanadku markuu ahaa 1983 wuxuu soo galay dalka Yaban, halkaasi oo ka noqday macallimiintii contractorska ahaa ee kolkaa ay qaadatay dalkii jamhuuriyaddii Yabanta oo waktigaa laba kala ahaa, Yabanta waqooyi iyo Yabanta koonfureed. kolkaa xagga waqooyigu ka noqday, Sancaanu ka bilaabay. waxa uu ahaa warsamo fure nin la mahadiyey oo aada looga jeclaa ilaa marka la soo gaadhayo sagaashameeyihiisii. waxaanu noqday madaxa kormeerka ee gobolka Sanca iyo nawaaxigeega. noloshiisu waxa uu ahaa macallimiintii kolkaa nolosha ugu wanaagsan ku noolaa. shaqadaasi oo shaqo aada iyo aada qiimaheeda iyo decent wages, xagga mushaarka ha noqoto, xagga nolosha ha noqoto, xagga guryaha ee degan yahay la siiye ha noqoto, ninku dee barwaaqoobay oo ku degay ayuu noqday. balse sagaashameeyihii markii la soo gaadhay ayaa warsamo fure waxaa dee uu ka qayb galay difcadihii ugu horreeyey
ee markaa qoranayay fiisaha bakhtiyaa nasiibka. fiisihii buu ku guulaystay. warqadii baa usoo dhacday, waa May 7keegii usoo dhacday, waana la difcaddii ugu horreysay ee markaasi Yaman ka bixi doonta ayuu ahaa. haba aan idhaahda difcaddii labaad buu ahaa, tii ugu horreysay yaanan odhanayn. waa dhacday maxamuud oo kolkaa haystay madaxa waxbarashada ee dalka Yaman, oo ahaa nin Yabaniya oo maxamuud la oran jiray, oo ay wada shaqayn jireen geedi furre kuna noolaan jiray maxamuud dalka Maraykanka, oo doctoratekiisi ku soo qaaday jaamacadda Detroit Michigan. ayaa Warsame Fure uu yimid kolkaas yidhi waxaan ku guulaystay fiisaha green cardka ee bakhtiyaa nasiibka, waxaanan u baxayaa Maraykan amba jannadii yarayd. maxamuud baa intuu ku qoslay ayuu yidhi waar ha isku tegin, jannaad joogtaa laakiin xaggaa cadaab weeyaan. Warsame Fure wuxuu qaatay maxamuud nin xaasid ah oo kolkaa dee muuqaalku sawirtay iyo imaginationka u haystay, walow London ba wax ku soo bartay, haddana dee waktigaa waxbarashada waqti kooban bay ahayde wuxuu u malaynayaa Maraykan inuu jannadii yahay. dibiga doolood baa la yidhi, dibiga doolood dhegihiisu wax san bay maqlaan, indhihiisuse ma arkaan. way ka degi weyday hadalkaa uu ku yidhi saaxiibkii maxamuud. bal haynu eegno Warsame Fure iyo amba bixiisii. Warsame Fure maalin Arbacaa ayuu wuxuu maray interviewgii ayuu maray. waxay wada marayaan nin ay isna saaxiib ahaayeen oo la yidhaahdo Coomey, kolkaa ay macallimiinta wada ahaayeen. Warsame Fure iyo Coomey interviewgii markii ay fareenba turkii baa la yidhi soo qadeeya oo pick up fiisaha qaata. kolkay safaaraddii ay ka soo dhamaysteen ay soo dhex socdaan geedkii ay dibadda u baxayaan, ayaa Warsame Coomey ku yidhi janno yar baynu gelaynaa. kolkaynu Maraykan tagno janno yar ayaynu gelaynaa, oo qasabadaha caanaha ah iyo kuwa malabka ah ayaa la isku daray baa la yidhi. kolkaasuu Coomey oo dee weligiiba isagu mardhoof ahaa, oo ay ugu horreysay qurbanada Yabani, ayaa murtii rumooday aadna wuula dhacay. kolkaasuu yidhi ilaahayow intaanu jannadaa yar gaarano hanaga dil. amba bixii iyo dhoofkii ayaa bilaabmay. Warsame Fure waxaan jeeda geedi Fure qoyskiisii wuu sabootiyey. waxaanuu yidhi idinku sii jooga, aniga saana kolkan sidaa ugu tago ee aan barwaaqada cagaha sidaa ula galo ayaan idigana idii xerayn oo waydu iman doontaa. ee horta aniga ayaa tegayo si aan dee degitaankiinii iyo aan babixiina iyo noloshiinaba dee aan idinka sii horeeyo, aan seeska usii dhigo halka degasaan iyo qormada dee aad degi doontaan aan idii sahan tago. calaa kulli xaal ragga socodka waa u dowr haddii mawdku daayo baa la yidhi. maalin khamiisa ayuu ka soo raacay Yaman Airways 3 saacadood oo transit ah oo Cairo ay ku fadhiday mooyaane 3dii dambe waxay ka soo dhaadhacday garoonka weyn ee Heathrow International UK ku yaala. fiise wuxuu wataa geedi Fure 6 bilood ah. London dee wuu iskaga sii hakan karaayo, London inuu ku hakado ma rabine waa ka gudbay.
wuxuu raacay fligtkii kolkaa u socday USA ee ka daadegaya kolkaa magaalada New Jersey amba haynu nidhaahno John F Kennedy International labada magaalo oo dee aan waxba isku jirin kay doontaba ha noqotee Warsame Furre wuxuu soo gaalaasadaba oo ay 5 saacadood iyo 6 saacadood Atlantic-ga ay soo haysato bad madow laakiin talankiisu iyo niyadiisuba ay aad u fiican tahay waxay soo gaalaasadeenba waxay Hudson River ka soo qabsatay landigii dayuuradii British Airways ee uu la socday waxaanay soo degtay John F Kennedy International welcome baa la yidhi to USA markay cagaha sida kolkaa wuxuu socday oo kolkaa ay damaanadiisu ahayd Warsame Furre gobolka Minnesota gaar ahaan Twin Cities labada magaalood ee mataanaha magaalada la yiraahdo Minneapolis Minnesota bal haynu eegno safarkiisa dambe halku ku tabayaaqaysto iyo waxyaalaha uu la kulmo markuu soo caga dhigtay waxba yaanan hadal idinku daaline markuu soo caga dhistay airportka weyn ee ku yaala magaalada Minneapolis Minnesota ayaa halkaasi waxa kaga hor yimid ciddii damaanadda u qaaday kolkay halkaa u yimaadeen ayay baabuur ku soo qaadeen Warsame wuxuu xidhan yahay koofiyadii hidiya dhaqanka u ahayd Soomaalida waxaa gar weyn oo hamasha ayuu dhigayaa wuxuu xidhan yahay dharka safaariga ee dadka qanigii ay xidhaan kabuuna waa u baalashaysan yihiin laakiin xilligaasi baraf ayaa is haysta kolkaa dhaxan xoogaa dhacasa kabahan xitaa kuwa lagu socdo dariiqyada maaha qoladii damaanadda u qaaday oo kolkaa reer isqabayhi guriguna ku yaraa waxay la doondooneen Warsame Furre inuu la dego niman ay saaxiibo sheekhna ku ahaayeen ay wada macallimiin ahaayeen oo uu ku jiro ninka la yiraahdo Doctor Dharaar oo lagu naanaysi jiray Xaaji Lacagtoon balse aanay isku san banaanayn Warsame Furre waqtigii la joogay dalkii Soomaaliya gurigii baa Warsame Furre ay ku soo garaaceen ciddii joogtay baa kolkaa inamada waxa weeyaan kolkaa ragga meesha degan waa iskaabulo waa ragay habeenkiiba qaar shaqeeyaan qaar aroortiibay shaqo tagaan kolkaa qola shaqay ku maqnayd waa habeennime waxa kolkaa qoladii aroortii ayaa loo tagay albaabka Dharaar baa markiiba ka furay kolkaasaa la yidhi de waxaanu rabnaa de inaad meel seexisaano dee uu idinka idinla joogo inta uu shaqo helayo ninkay markiiba isku dhufteen indhaha waa Dharaar oo aanay isku sanfiicnayn Xaaji waa Xaaji Lacagtoon lagu naanaysi jiray oo aanay geedi Furre marnaba isku san banaanayn Warsame Furre dhibaatadii ay isku qabeen wuu ilaawo ku bood buu isiina Doctor Dharaar amba Xaaji Lacagtoon baa yidhi iska soo dhawow halkan fadhiiso aqalkii buu xidhay Warsame Furre meesha birsada fadhiga ayuu fadhiisiiyey shandadiisii yarayd iyo Warsame Furre kolkaa qaloonaya oo aan baran qalo amba marti u badan
wuxuu yidhi doctor dhalaar war anigu aroorta horaan u kacayaa 5 kacayaa waan shaqo tegayaa kolkaa madbaxa ayaan ku tusayaa buu yidhi raashinku halkan buu yaallaa buu yidhi waa kan waad karsanaysaa buu yidhi tallaajadaasi wixii aad uga baahantaad oo kala baxaysaa saliidda wataa baashii tamaandhadii iyo basashii laysku googoynayo ka fuul haddaad samaysanaysid iyo digaag haddaad samaysanaysid iyo wax kastaba halkaasi ku jira waxna galaase tallaajadii ku jira help yourself buu yidhi take care goodbye xagga dhakadu iskaga baxay kolka maqsin dusha dhalaar waa iska seexday xaaji lacag doon waa seexday warsama fure fadhigii ayaa kolkaa kuududaa gaajana way haysaa nin dabeecadahan bartay mu ahayn haddaba qisada warsama fure iyo quman cali waraabe oo inoo dambaysa halkaasi ayaynu ku joojin doonaa waa qeybtii labaad ee qisadii warsama fure iyo quman cali waraabe qeybta dambe ayaynu kaga hadli doonaa waxyaalo badan oo aad ula yaabi doontaan iyo warsama fure waxyaalaha uu kala kulmay iyo dhibaatooyinkii uu la kulmay iyo sidii uga baxay qaybta dambe halkani waa website-ka iyaga www.arabsiyatimes.net iyo youtube-ka iyaga oo isna Arabsiya Times waa bahda Arabsiya Times oo idin leh dhegaystayaasha iyada qiimaha iyo qaayaha badan oo la socda qisadan qaybta dambe oo insha Allah aan idiin soo diyaarin doono waa dhibaatada qurbaha iyo sawirka marka hore laga haysto ragga socodku waa u dhow haddii moodku daayo isma dhaafno ayaan idin leedahay